Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ninkani Ameerikaanka ah wuxuu ka shaqeeyaa shaqo ay aad u jecel yihiin carruurta iyo guud ahaan dhalinyarada. Inkastoo shaqadaani culus tahay isla markaana dhib badan tahay, haddana wuxuu ku qaataa mushaar fiican oo aad u badan. John Harrison waa muwaadin Ameerikaan ah oo dhashay sanadkii 1942, wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadka tirada yar ee hadda ka shaqeeya shaqo ay yaraantoodii ku riyoon jireen isla markaana aad u jeclaayeen, taas oo ah dhadhaminta ice cream-ta. Subaxii inta uu soo tooso ayuu imaanayaa shirkadda, wuxuuna dhadhaminayaa ice cream-ta la soo saaray isla markaana hubinayaa asiga ayaa shirkadda ugu xil saaran in ice cream-tani macdahay oo suuqa lagu fasixi karo iyo inaysan macayn oo aan suuqa lagu fasixi karin. Markii ay bisha dhammaatana wuxuu John u soo xaadiraa in uu qaato mishaarkiisa. Ma jirto wax kale oo shaqo ah oo u qabto shirkadda oo aan ka ahayn dhadhaminta ice cream-ta. John wuxuu ka soo jeedaa qoys aad u jecel waxyaabaha macmacaanka ah, waxayna reerkiisa ku soo dhex jireen shaqadani macmacaanka tan iyo sanadkii 1880-kii oo John aabihiis wuxuu Atlanta ku lahaa warshad yar oo soo saarta ice cream-ta. Taas ayaa sabab u ahayd in uu John noqdo qof khabiir ah oo kala yaqaan ice cream-ta, oo yaraantiisa ayuu xirfaddan dhadhaminta ice cream-ta aad u soo bartay. John ayaa sanadkii 1980-kii shaqadani ice cream dhadhaminta ka bilaabay mid ka mid ah shirkadaha soo saara ice cream-ta, wuxuuna bil walba mushaar ahaan u qaataa $10,000. Waxayna tahay shaqadiisa hubinta ice cream-ta iyo in uu talo ka siiyo shaqaalaha wax ay ku darayaan ice cream-ta. Wuxuuna subax walba dhadhamiyaa 60 xabbo oo ice cream ah oo kala duwan, waxayna hawshan dhadhaminta ku qaadataa 5 saac oo kaamil ah, asigoo u adeegsada hawshan dhadhaminta malgacad ama qaando ka samaysan dahabka. Wuxuuna malgacadani dahabka ah u doortay in aysan wax saameyn ah ku lahayn dhadhanka ice cream-ta, oo wuxuu dhahay waa malgacad ku sahlaysa in aad si toos ah u dhadhamiso ice cream-ta, halka malgacadaha kale ay ku qaldayaan. Ninkani xirfadiisa darteed ayay shirkadda uu u shaqeeyo ku heshay malaayiin dollar oo faa'iido ah, asigana waxay siisaa shirkadda $10,000 oo isugu jira dhiirigelin iyo mushaar. Haddaba waxaa jira dad badan oo xasday oo u quuri waayay John shaqadiisa, laakiin John naftiisu wuxuu u arkaa shaqadani inay tahay mid aad u dhib badan oo aan marnaba sahlaneyn, waayo waxay shaqadani John ka hor istaagtay inuu cuno ama cabo cuntooyin iyo cabitaano kala duwan. Xataa waxay shirkadda u diiday inuu dhuuqo sigaarka. Sidoo kale waxay shirkadda John ku waajibisay inuusan noqonin qof caata ah, oo shirkadda John waxay ka dalabtay inuu mar kastaba ahaado qof cayilan, waayo haddii uu noqdo qof caata ah waxay caatanimadaasi saameyn ku yeelanaysaa dhadhaminta ice cream-ta. Tani ma aqaano waxa ay ka wado shirkadda, mana garanayo farqiga u dhaxeeya qof buuran iyo qof caata ah marka la joogo dhadhaminta ice cream-ta. Inkastoo waxaasoo dhibaato ah ay haystaan John, haddana weli wuxuu jecel yahay shaqadiisa, wuxuuna soo dhadhamiyey inta uu ka shaqaynayay shaqadani dhadhaminta ice cream-ta 60 milyan oo xabbo oo ice cream ah. John ayaa ah khabiir ku xeel dheer dhadhaminta ice cream-ta, waana ninka dunidani ugu dambayso kala saaridda dhadhanka ice cream-ta. Wuxuuna John shaqadani ka fariistay sanadkii 2010.